wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaasi ay dhowaan gaareen ciidamo ka socda Ethiopia. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sida loo arko ciidamadaasi tagay dhuusamareeb. inkastoo uu socdo diyaargarowga dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, haddana waxaa barbar socda dadaalo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda maamulka oo kol hore ay dowladda shaacisay in ciidamada dowladda lagala xisaabtamayo xaqiijinta amniga inta ay socoto doorashooyinka golayaasha dowlad goboleedka Galmudug. ciidamada dowladda ee ku sugan dhuusamareeb oo isugu jira boolis, military iyo nabad sugid ayaa waxaa kaabaya ciidamo kale oo qayb ka ah howlgalka Amisom kuwa oo ka socday dalka Djibouti. ha yeeshee saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay warar kala duwan kadib markii dhuusamareeb ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda Itoobiya kuwa oo ka soo gudbay dhanka gobolka Hiiraan. ciidamada Itoobiya qaarkood ayaa qayb ka ah howlgalka Amisom, ha yeeshee lama sheegin in ciidamadan ay qayb ka yihiin Amisom iyo in kale, balse madasha xisbiyada oo qoraal soo saaray waxa ay ku sheegeen in ciidamada tagay dhuusamareeb aysan ahayn kuwa ka tirsan howlgalka Amisom, lana doonayo in lagu qalqalgeliyo arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug ee loo darban yahay. dhinaca kale, xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya lagana doortay Galmudug ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in aysan jirin ciidamo aan Amisom ahayn oo tagay dhuusamareeb. waxa uu ganafka u tuuray warka ka soo baxay madasha xisbiyada ee lagu sheegay in dhuusamareeb ay tageen ciidamo aan ka tirsanayn howlgalka Amisom. marka laga yimaado qoraalada mas-uuliyiinta, ma jiraan wax wara oo ka soo baxay laamaha amniga Galmudug ee ku aadan ciidamada tagay dhuusamareeb ujeedkooda. ha yeeshee waxaa cad in ciidamo ka socda dowladda Itoobiya oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ay ku sugan yihiin dhuusamareeb, kuwa oo fariisin ka dhigtay agagaarka garoonka diyaaradaha degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. dowladda iyo ahlu sunna ayaa isku maandhaafsan dhismaha Galmudug oo guddiga farsamada ay shaaciyeen howlbilowga dhismaha maamulka, waxaana dhuusamareeb ka socda oo kulamo u dhexeeya madaxda ahlu sunna, mana jiraan wax wara oo ka soo baxay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo. madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan Soomaaliya iyagoo ka mid ah howlgalka Amisom ee Soomaaliya. waxaana intaasi raaciyay in Soomaaliya ay ka bixi doonaan marka ay xaqiijiyaan ammaanka iyo xasiloonida. hadalka madaxweynaha ayaa yimid xilli ay ciidamadiisa Soomaaliya jooga ay wajahayaan colaadin kaga imanaysa qaybo ka mid ah Soomaalida oo diidan taageerada ay siiyeen maamulka Jubbaland, kaasoo dowladda Soomaaliya diiday in ay aqoonsato. maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi. Falastiin Axmed Iibaan ayaa inoo soo koobaysa. bishan waxay Kenya iyo Soomaaliya isku raaceen in ay caadiyeeyaan xiriirkooda kadib bilooyin xiisado siyaasadeed ay u dhaxaysay labada dal, kuwaasoo ku kala aragti duwanaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay doorashooyinkii Jubbaland. Kenya waxay ahayd wadanka kaliya ee gobolka Geeska Afrika ee aqoonsaday natiijadii ka soo baxday doorashadii Kismaayo, taasoo dib loogu doortay Axmed Madoobe inuu xilka sii haya 4 sano oo kale. George Musamale oo madax ka ah xarunta maareynta qataraha ee Afrika ayaa waxa uu leeyahay: What is really happening is that the Somali government is pulling its muscles, showing very well we do not recognize the government in Jubaland. ay muruqeeda ballaarinayso si ay si wanaagsan ugu muujiso inaanay aqoonsanayn dowlad goboleedka Jubbaland. tanina waxa ay keentay in uu yimaado go'aanka lagu celiyey madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland, waxaanay tani sii kululeynaysaa xaaladda oo ah in Kenya laga riixay Gado iyo dhowr meelood oo kale oo ay ka howlgeli jireen, lana keenay ciidamo Etoobiyaan ah oo xiriir saaxiibtinimo la leh dowladda Muqdisho. waxay ila tahay in aynu arki doono maalmaha soo socda dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ka dhaca. Kenya ayaa u dirtay ciidamadeeda Soomaaliya sanadkii 2011 si ay Al-Shabaab uga riixaan xuduudda Soomaaliya. kadib waxay Kenya ku biirtay howlgalkii Amisom ee Soomaaliya. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay Khamiistii in ciidamada dalkiisa ay Soomaaliya muddo dheer sii joogi doonaan. As I have stated before, sidii aan hore u sheegay, ciidamadeenu waxay ka sii mid ahaan doonaan Amisom tan iyo inta ujeedooyinkeena laga gaadhayo. Kenya waxay ciidamo ka joogaan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gado, kuwaasoo xuduud la leh Kenya. Maxamed Cabdullaahi Gardhuub, gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gado, ayaa sheegay in deegaanka ay gacanta ku hayaan ciidamo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya.
toddobaadkan waxaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland loo diiday inuu gobolka Gado uu soo galo. Muuse Maali ayaa sheegay in gobolka Gado uu khatar badan oo xagga amniga ah ku hayo dalka Kenya. Now being moved out of Gedo, an area that they have a lot of interest in, clearly exposes Kenya to more insecurity because we don't know how Ethiopians are going to play it. Kenya should be worried about that. Arrimaha Jubbaland waxa ay muddaba xiisad ka dhex abuureysay maamulka Muqdisho iyo Kenya. hadal uu bishan gudaheeda ergeyga uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan uu ka jeediyay golaha ammaanka ayuu ku sheegay in doorashadii Agoosto ee Jubbaland ay keentay khatar ah in rabshado ay dhacaan qabiiladii oo kala fogaaday iyo faragelin gudaha ah wuxuuna Swan ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida inay arrintan wada hadal iyo isku tanaasul ku xaliyaan. aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iibaan oo inoo faahfaahinaysa warbixintii wariyaha VOA Nairobi Maxamed Yuusuf halkaad kala socotaan waa VOA.